kulanti wanaagsan saaxiibayaal waxaan idinla wadaagi doonaa macluumaad cajiib ah iyo waliba soo kale ganacsatada Soomaaliyeed oo xaalado kale culus soo wajahayda. Haddaba maxay tahay magaalada Muqdisho waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay maalmihii ugu dambeeyay ee markaasi la arkayay in dadkii sida weyn ugu markaasi qadan jiray ama ugu cunteen jiray maqaacidaha waaweyn inay ka cunteeyaan maqaacidaha yararka ee cambuulada lagu sameeyo ama muddooyinka laamiga dhexdeeda ay ka cunteynayaan. Haddaba maxaa sababay dadka oo si weyn markii hore meelahaas ugu cunteen jiray in hadda dib ugu soo laabtaan maqaacidaha yaryarka ah ee aan markaasi horaan hore haysan ganacsigan intaan leeg xogta oo dhimeystiraan halkan kula wadaagi doonaa markaas hore soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkan oo share gareeya magaalada Muqdisho ee Soomaaliya waxaa si weyn markaasi ganacsigooda iyaguna u balaaranaya dadka cambuulada ku ganacsada ee habeenkii wadooyinka ama laamiga qarkiisa soo fariista iyaga oo markaasi horaan hore haysan ganacsigan intaan leeg markii la keenay in emergency-ga maqaacidaha waaweyn ka furan markaasi laga qaado lacag markaasi canshuur ah halka ganacsataduna ee markaasi go'aan ay ku gaareen in markaasi lacagtu iyaguna markaasi ay ka go'do qofka muwaadinka ee cuntay ama halka dooro ku cuntay halka sente ay dul saaran tahay waxaana sidoo kale ee ganacsatada markaasi iyaguna ay sameeyeen fal markaasi qofka muwaadinka Soomaaliyeed aan ku habboonayn halka ganacsatada lacagtooda aan waxba ka go'in oo si toos ah markaasi ugu dhacdo waxaana sidoo kale bulshada ee caasimadda Soomaaliya gaar ahaan kuwada ka adeegan jiray supermarketyada waaweynka iyaguna hadda ay ka go'een oo markaasi ka adeeganayaan meelaha yararka ah lambarka EFC ugu dhagan yahay halka oo iyaguna markaasi adeegooda ay ka qaadanayaan magaalada Muqdisho ee Soomaaliya tan iyo intii lagu soo rogay canshuurta dheeraadka ah waxa bulshadu ay si weyn u dhibsanayeen in ay bixiyaan canshuurta laakiin se halka ganacsatadu markaasi ay qorshe ay u degeen inay markaasi dadka Soomaaliyeed ee muwaadinka ah aan waxba haysanin 2 jeer ama 3 jeer oo kala canshuurta ay ka baxdo maqaacidaha yaryar ee habeenkii markaasi lagu cunteen jiray horaan hore ganacsigan intaan la egma aysan haysanin laakiin se hadda waxa si weyn markaasi u soo guux dhaafay meelaha waaweyn ee markaasi lagu cunteeyo habeenkii ama banaanka barxadda hore ee markaasi inay soo guux dhaafiyaan dadka horaan hore ka cunteen jiray maqaacidaha waaweynka iyada oo markaasi loo raacayo sababaha kaliya canshuurta 2 jeer ama ay ka go'i karido waxaana sababta keentay in halkan ay isugu yimaadaan aw markaasi ay ka cunteeyaan haddaba muwaadinka markaasi intaas meelood canshuurta ku dhiibayo marka lagu daro tan kirada guriga markuu dhiibayo ganacsaduhu kaliya marka uu dirayo lacagta ee markaasi wax ku iibsanayo in ay ka go'aydo laakiin se aanan ka go'aynin mar walba oo muwaadin wax ka cunteeyo haddaba saameyn intee la eg ay ku yeelan kartaa aragtida qaybta hoose faalada commentiga noogu reeb mahadsanideen aragtidiina qaybta faalada hoose commentiga noogu reeba mahadsanideen aragtidiina qaybta hoose faalada commentiga noogu reeba mahadsanideen